بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد مقعي وشافعي لولا عليك الصعود الشركة بنكي صومبانك وحنا مدح سوقين صومبانك صومبانك وبنكي عالمي وإسلامي وقصدنا كيستا موقلاشة كيستو بنكي قدحي الصوماليات صومبانك وحالة أساسي شاني توانكي جولاي 2019 شاني توانكي جولاي 2019 وحالة أساسي حرونتي سووه الرئيسي مقالة قروي حرونتي سلوات كل دقب وصاصو كالكعيو iyo saddex xarun oo magaalada Muqdisho uu ku leeyahay Trebiano Xamarweyne iyo Holwadaag adeegyada aan qabano waa adeegyo maaliyadeed oo dhameystiran oo banki commercial uu qabto intaas hadii aan uga gudbo aan u galo ujeedada barnaamijka Muqdisho Fair waxaan ka mid ahayn dadkii maalgeliyay barnaamijkan oo taabageliyay ujeedada aan u sameynayna waxay tahay in Sombank ay tahay bankiga kaliya ama dhihi kar bankiga kaliya banki shirkadda kaliya man dhihi karo shirkado badan oo waxa jiraan nala mid ah aaminsan in dadka dhalinyarada ah xooga la saaro aniga marka shaqada Sombank la qaadanayay iyadoo anagoon ku amaanin shirkadda aan u shaqeeyo cidna igama horeyn qofna kama aqoon macallin jaamacadeed aan ahaa arday kamid ardayda ay soo sheer gareeyay page-kooda ay soo dhigeen shaqo waan iska apply gareeyay imtixaan aan leewacay interview aan leewacay shaqadii sidii ku galay xafiis aan leeysi wax kala baa leeysi soo marka ka Sombank ahaan marka barnaamijkan waxa barnaamijyada ugu horeeyay aan sponsor ku sameeyno taasna waxaan nagu kalifayo waxaan ognahay qiimaha uu leeyahay qofka dhalinyarada ah hadii laakiin la yiraahdo qofka dhalinyarada kaliya ha ka qaato reerkiisa ama cidiisa ama cid xigto shaqaha ka qaato waxay noqonaysaa xoogaa noocan ma inuu tension badan dhasho laakiin cilmi baaris badan la sameeyay waxa jirto oo hadii xataa qofka lagu shaqaaleysiyo qaraabanimo lagu shaqaaleysiyo still unemployment waxba laga qaado lianna qofkan qaraabada naftirkiisa xataa wuxuu u baahan yahay shaqo u baahan yahay soo marka cilmi baaris sameeyay waxay sheegaysaa inuu wax relationship uusan ka dhaxaynin inaa qof qaraabanimo ku shaqaaleysiiso qofka kale ka tagto lianna isaga wuxuu u baahan yahay shaqo u baahan yahay tan kale waxay tahay unemployment markii laga hadlaayo ama shaqo la'aan markii laga hadlaayo dhalinyarta 70% la dhahaa laakiin waxa jiro waxyaabo badan oo loo baahan yahay in laga reebo markii cilmi baarista loo tago waxa kamid ah qofka hadii uu qof weyn yahay aan gaar yahay wax bartay skills uu leeyahay xirfad uu leeyahay laakiin shaqada uusan raadin ka war ma lagu tirnaayo shaqo la'aanta laguma tirnaayo qofku waxa qasab marka hore inay ka go'an tahay inuu shaqeeyo aniga waxaan ku soo wax bartay dalka Bangladesh ama masterkay ku soo diyaariyay waxa jirto qof kasta ee science barta ama wax kasta barta waxa qasab inuu leeyahay skills gaar u ah ama xirfad gaar u ah sababtu waxay tahay qofkii yani waxa la yiri qofkii kalluunku siiyo maalin hal maalin uu ku dharjiyay laakiin qofkii ku baray sida loo kalluumaysto wiliga uu ku dharjiyay soo marka anigoo rabo inaan fursaddan uga faa'iideysto waxaan aad iyo aad u baraarujinayaa Dr. Saadiya barnaamijka quruxda badan leeyahay academy ee ku soo bandhigtay runtii maalintii wadanka aan soo galay anigoo shaqo la'aan ah wax aan qabto weysan qorsheyga koowaad wuxuu ahaa inaan xirfadahaas mid kamid ah barto master degree ahaa isma dhihin master aad tahay xafiisa fadhiisanaysa no shaqooyinka qaar kood dhalinyarada ay ka xishoodaan waxay ogaanayaan markay waalidiin ay noqdaan reere ay yeeshaan markaas waxa qiimo la yeelanayso shaqo walba oo la qaban karo wuu qaban karaa laakiin before uusan guursanin ama reer uusan yeelanin wuxuu leeyahay shaqadaas aniga ma ii qalanto siyuutuba liguma aha master degree aan wataa sababtoo ah South Asia marka tagto Hindiya tagto Bangladesh Malaysia professorkaaga markuu xisada ka baxo foorna rootiyo aadaa rootigaas uu dubaa mid markuu meesha ka baxo electric ka shaqeeya korontiista waay ceeb ma aha marka waxaan la soo qabsanay in qofka skills uu barto arday aan wax u dhiga maalin waxaan dhahay shaqada ugu horeysa aan qabato macallin maxay ahayd ay dhahan anigu waxaan ahaa Lebiati aan do you know Lebiati waxa la kan maqaayad alaabta ka dhaqo macna sharaf waay sababtoo ah inta dad bari lahayd waxa ku qurux badan mar walba in yani xirfad aad barato aad biri kamaal aad ku shaqeysan karto insha Allah ta'ala Sombank waxaan rajaynaynaa anigoo ku hadlay magaceeda in qof walba oo u baahan inuu barnaamijka ka faa'iideysto shaqooyinka ay soo bandhigto si cadaalad oo transparency insha Allah ta'ala loo sameyn doona aad ayaan u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.